sheekadan waxay igu reebtay xusuus aan weligii maskaxdayda ka bixinin. waa sheeko xanuun badan oo mar walbo aan soo xusuusto aan joojiyo wax walba aan samaynayo kadibna aan dib u milicsado taariikhdaas xanuunka badan. sheekadan xanuunka badan waxay dhacday 2011 mar aan ku noolaa xeryaha qaxootiga ee Dadaab. xilligaas waxaa jiray abaaro aad u xun oo qabsaday gobolka geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Soomaaliya waxaa kasoo qaxayay dad fara badan oo markaas xoolahoodii iyo wax walba ay haysteen ay kasoo dhammaadeen. aniguna markaas ayaan bilaabayay inaan warbaahinta la shaqeeyo oo xirfadeyda warbaahinta markaas ayaan barbaranayay. waxaa jirtay warbaahin aad u fara badan oo caalamka ka yimid oo qaxootiga Kenya isugu timid. warbaahintaas qayb ka mid ah ayaa waxaan u raacay marka inaan xuduudda Soomaaliya intaan gawaari qaadano dadkaas soo qaxayo ilaa xuduudda uga hortagno kadibna aan warbixin dhammaystiran kasoo samayno. markaan goynay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo wax yar aan dhanka Soomaaliya sii galayno ayaa waxaa wadada ku aragnay dad aad u fara badan oo line ku jiro oo isdaba socdo oo u badan haween iyo caruur oo kareetooyin qaar saaran yihiin qaarna ay lugeynayaan. gawaaridii ayaan gees u yara dhiganay kadibna wadada ayaan ku soconay saan u wareysano. wax yar kadib waxaa indheheena qabtay geed hoostiisa maamo waayeel ah oo aad daada ma aragta uga muuqato, haddana rafaadkii iyo silicii iyo abaartii iyo oonkii isugu darsamay oo markaa aragtid wallaahi qalbigaaga uu qac ku dhahayo. waan ku leexanay oon xun iyo dadka waxaa ka muuqda markaas rafaad, biyo ma jiro, dhulka waa wada qalalan yahay, geedaha waa wada abaar. annagana biyo yaraan wadanaa markaa caagada yar noogu jiro oo aan kasoo qaadanay Dadaab oo ilaa wadadaas aan rabnay inaan ku marno. waan ishayn weynay, maamadii ayaan u tagnay, waa waayeel, 2 cunug yaryar ayaa dhabteeda ku jiifo. kadib maamadii biyihii ayaan u taagnay, way naga diiday. kadibna waxay tiri anu waan soomanahay ee ilmahan yariiska ii siiya biyaha. 2 caruur ee dhabteeda ku jiifo ma moodiis inay nolol ku jirto. waad dareemaysaa in ma aragtay ay sakaraad iyo silac dartiis ay u socon waayeen ay dhabteeda ugu jiifaan. iyadii ay ku jiifaan ee hoy iyo naxariis ka raadinayaana waa maamo oo dee xaaladeeda ilaahay og yahay oo iyadaba u baahan in loo gargaaro. markaasaa waxaan ku dhahay hooyo, adigoo safar ah oo rafaadsan, ilaahay subxaana watacaala kuguma kalifin inaad soontid ee maxaa u soomaysaa? markaase waxay igu tiri hooyo, haddaan soomay iyo haddaanan soominbo maxaan haystaa oo cunaa ama aan cabaa? waxaa la ii qaatay ilaahay inuu ajir igu siiyo aan iska soomo. waxay kaloo tiri waxaan soo lugaynay muddo ilaa 1 bil ah ayaan waddada kusoo jirnay. dameerkii aan kusoo qaxnay waa dhintay oo rafaad iyo silac maaragtay iyo ooni gaajo ayuu u baktiyey. sidoo kale 3 caruuray wadatay ayay u tahay. mid ka mid ah waxay tiri gaajo iyo oon ayuu asagana usoo dhintay, waddada ayay uga soo tageen. waana sheeko keligeed ma ahee dadka waddada maaragtay aan ku wareysanayno dhan ay noo sheegayeen oo qofkii maaragtay markaas dhintaa aan loo hayn tabar lagu aaso, qaab loo aaso, qof walbana waa laga soconayay. maxaa yeelay dadka waxay ii sheegeen markaas in qof walba uu isku dayay inuu caruurtiisa qofka markaas uu haysto inuu ka gaarsiiyo tuulada ugu dhow. tuulada ugu dhow markaad tagtid waxaa ka helaysaa biyo yar, kadib waa sii soconaysaa. duqdaas ayaa marka qalbigaygii iyo maskaxdeena inta groupka aan ku soconay aan qaban weynay inaan ma aragtay aan ka tagno meesha uga tagno. waxaan isku daynay marka inaan soo qaadno, kadib gaariga ayaan saarnay, meeshii ayaan kasoo noqonay ilaa iyo qaxootiga aan kusoo laabano. duqdii marka 2deedii cunug ilaahay subxaana watacaala waa u badbaadiyey. kadibna waxaan ku dhex sii daynay meeshii dadka maarata lagu qaabilayay oo xaggaas ay hay-adihii markaas gargaarka ay kula wareegeen. sawirka aa aragtaan ma aha sawirka saxda ee maamada aan kaga sheekeynayay, waa sawir aan ku sameeyey AI, waana sawir ka turjumaya xusuusteydii. qoraal ayaan ka sameeyey aan horaan u shaacinin oo qoraal ka mid ah xusuus qorkeyga gaarka ii ah oo aan ku qoro waxyaabaha itaabto inta aan shaqadan ku jiray oo warbaahinta iyo arrimaha gargaarka bini'aadanimada aan ka shaqeynayay. sheekadan waxaan idinkula wadaagayaa 2 sabab. sababta koowaad in anigana aan isxusuusiyo, idinkana idin xusuusiyo xaaladda adag ee dadkeena ku jiraan. abaarahaas 10 sano ka hor ayay dhacday, laakiin in ka badan ayaa soo noqnoqotay oo sidoo kale dadkeena ay usoo qaxeen gobolada gudaha, waddanka gudihiisana ay ku qaxeen, waddanka dibaddiisana ay ku qaxeen. midda kale in markaa aragtid in culays iyo rafaad uu ku haysto, inaad soo xusuusatid dad kaa daran inay jiraan, iyo adoo si kastoo xaaladaada ay kugu adag tahay inaad aadan ilaawin ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa iyo waajibaadkiisa. waxaan eebbe oga baryayaa ummaddeena iyo dadkeennaba inuu dhibaatada ka saaro. waxaan kaloo rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iido sheekadan. haddii ay ku anfacday fadlan la wadaag asxaabtaada. wixii talo iyo tusaalena commentiga iigu soo reeb. mahadsanid.